gobolada bari ee Soomaaliland waxa ka taagan abaaro aafeeyay dadka iyo dunyadaba iyadoo xoolaha noolina ay haatan aad u jilicsan yihiin maadaama aanay haysan baad iyo biyo ku filan. haddaba gobolka Togdheer oo roobab aad u yar ka deeyeen bilowgii xilliga dayrta ayaa waxa uu soo hayaamay qoysas aad u badan oo xoolo dhaqato ah kuwaas oo ay abaari wado. dadkaasi soo hayaamay oo aad u rafaadsan waxay u baahan yihiin gargaar bilaadantinimo oo degdega. Jaamac Ibrahim Awnuur iyo Faaiisa Maxamuud Dubad oo wakiil ka ahaa ganacsadaha Ibrahim Saciid Luuto ayaa maanta raashin iyo biyo gaarsiiyay 350 qoys oo ku kala sugan degmooyinkaasi Dhoqoshay iyo Balidhi kuwaas oo u soo hayaamay deegaamadaasi. dadkaasi oo ahaa kuwa aad u liitay waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen wakiilada deeqdan soo gaarsiiyay iyo waliba ganacsadihii ugu deeqayba. waxaana eebbe uga baryeen inuu miisaanka xasanaadkooda ugu daro. mas'uuliyiinta degmadaasi Dhoqoshay oo 350 qoys raashinkooda guddoonsaday ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore ilaahay baa mahad leh. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. mahadda labaad waxaan u celinaynaa Sayid Ibrahim Luuta ninka soo diray raashinkan ee ayna soo gaarsiiyeen Faaiisa iyo Jaamac isagoo ah raashin 300 qoys ku filan. sida ilaahay waxaanu ka baryaynaa halka uu ka soo saarayna in ilaahay wax khayr leh ugu bedelo. annaguna dadkii qaateena ilaahay uu dhadhamo shifa leh uga yeero. عزاوجلها مهضة لبعضنا وحالة سيد إبراهيم لوطا وديقاً سو غارسي دغمدا Dhoqoshay ilaahay waxaan khabarayna halka uu ka soo saaray ilaahay wax khayr qaba lagu bedelo waxa kale oo mahadnaqan gaarsiinayna hawl wadeennada waday ee uu kamid yahay Jaamac iyo Faaiisa annaguna ka hawl galay degmada waxaan ku rajaynaa ilaahay waxaan dhamaan waxa ilaahay uu khabarayna roob khayr qaba ilaahay dadka uu shubo ilaahay dadka abaaraha ka soo furto ilaahay xaqiisa loo noqdo in ilaahay heshiis madu ay la gashan ilaahay buu khabarayna ilaahay waxaan khabarayna mid degdeg oo khayr qaba ilaahay baa dadka baahi beelin kare ilaahay waxaan khabarayna ilaahay baahida iyo abaarta ilaahay naga soo jebiyo. ilaahay waxaan u baryaynaa kuwa noo keenay iyo halka laga soo saaray wax khayr leh oo caafimaad leh ilaahay inuu siiyo kuwa noo yimina caafimaad khayr qabta Allah siiyo caafimaadka wax ka wanaagsan ma jiraan. Faaiisa iyo Jaamac ilaahay waxaan u baryaynaa caafimaad aakhira iyo caafimaad ifka ah inta ay halka yimaadaan degmadana ilaahay inuu nabad qab ku geeyo halka ay ka yimaadeen annagana nabad qab deeqda ninkii soo dirayna Sayid Luuta ilaahay inuu halkiisa ku caawiyo oo wax khayr qaba ugu bedelo waxa uu noo soo diray annagana uu caafimaad nala galo. geestoodana injineer Jaamac Ibrahim Awnuur iyo Faaiisa Maxamuud Dubad oo goobjoog ka ahaa qaybinta deeqdaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa. waxaan u mahadnaqayaa guddiga sharafta leh ee noo suurto gelisay in aanu halkan ku qaybino raashinkii deeqda ahaa ee aanu ka soo qaadnay Sayid Ibrahim Saciid Luuta oo dhalashadiisu Imaaraati tahay oo noo soo wakiishay raashinka halkan aanu keennay in aanu gaarsiino meelaha dadka abaaruhu ay saameeyeen ay joogaan raashinkaas oo loogu talagalay dadka jilicsan ee ama ha soo guuraan ama halka haba joogaanba labada qoloba oo dadkaas ilaahay waxaan uga baryaynaa in abaarta ilaahay naga soo jabiyo ayagana deegaanadii ay ka yimaadeen ilaahay nabadgelyo dib ugu celiyo. raashinkan waxaan joognaa degmada Dhoqoshay waxaan keenay oo aan ka soo jawaabnay codsi uu ka soo jawaabay nin Imaaraati ah oo magaciisa la yiraahdo Ibrahim Saciid Luuta oo caawimo u soo dhiibay dadkan ay abaartu ku degtay ee dhibaataysan ee faqarada ah in wax uu kari karo karaankiisa ah uu kala qayb qaato raashinka ama caawimada waxa loo soo wakiishay aniga oo ah Faaiisa Maxamuud Ismaaciil Dube iyo Jaamac Ibrahim Awnuur halkaan joognay imika Dhoqoshay waxaan ku wareejinay 300 oo raashin 300 oo qoys raashinkood dadka jooga meeshana waad aragtaan aad iyo aad bay u farabadan yihiin waxba ka tari mayso laakiin inaan la qaybsano dhibaatada haysata iyo abaaraha ku habsaday ayaan u keenay raashinka intaa. sidoo kale degmada Balidhi ayaa la gaarsiiyay 50 qoys raashinkood iyo waliba 20 booyadood oo biyo waxaanay dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlayay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen cid kasta oo u keentay kaalmadaasi.
waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa halkan soo gaaray caawimo ka timi nin carab ah oo la yiraahdo Ibrahim Saciid Luuta halkan waa Beledhig waxaan anahay gudoomiyihii degmada waanu ka gudoonay caawimada waxaana wada Faysal Maxamuud Dubad iyo Jaamac Ibrahim ayaana soo gaarsiiyay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay xasanaad ugu bedelo intii ka shaqeynaysay ee u soo dhibtootay ee halka u soo gaadhay iyo cidii soo bixisay khayr Allah ugu bedelo alxamdulillah ilaahay baa mahad leh halkan waxaa noo yimi Jaamac Ibrahim aw Nuur iyo Faisa Maxamuud Dubbe oo noo keenay caawimo dhan 50 qoys raashinkood iyo 20 booyadood oo biyo ah waxay ka soo qaadeen ilaahay khayr ha siiye Ibrahim Saciid Luuta جزاك الله خير إلهي حسناتك ميزانك هاوغو سياديو إلهي هبركيو أدبان وجود عيننا إبراهيم سعيد لوطي أدبان وجود عيننا ودين إسلامه أدبان وسود ويننا ونين نوعاوي أبا الله واوغو هينا وحنا رجينا وني الله وحسيه إنه مر لبعض نوغو عليه وبشير إبراهيم غير بلشة TV برعو